بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ميل كستا جوجتان وأحد شان يتوانك بيشة جون سنة كالبادة كل باتنيشان كسر وادا فلانقاين معلومات قارة وانكو إيجينو إلا هيركا أي أود أوليهين إن أي إسرائيل جبيان خبكا أي حيثتو إيران وبحين تانا انتو جرنو حكسينيسا معلومات دميستران والله حريرة حبابكا إيران أي خبكا دا أود أوليهين إن أي بربريان إسرائيل balse intaanu guda gal waxaan ka codsanay ku soo biirtay kanaalkan YouTube ee Imaan Jaamac oo maalin kasta ku siinaya macluumaadka ugu dambeeya caalamka markale soo dhawaada. Iiraan waxay xalay qaaday weerarkii ugu weynaa oo toos ah oo ay ku qaadayso Israa'iil tan iyo asaaskeedii. Waxay ahayd habeen lagu tilmaamay habeenkii shaandhada difaaca Israa'iil la jajexay. Ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan waxay si toos ah u beegsadeen bartilmaameedyo military iyo kuwa istiraatiiji oo ku yaala gudaha Israa'iil iyadoo la adeegsaday gantaalo plastic ah kuwa hypersonic iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn oo shaabad u noqday awoodda cusub ee Iiraan. Wax la dhihi karaa weerarkan wuxuu waji cusub u furay dagaalka qarsoon ee labada dal isagoo muujiyay in Iiraan aysan si xajin doonin weerar dadban oo ay u marayso kooxaha wakiilada balse ay hadda si buuxda u garoosatay dagaal toos ah inay gasho. Sidee u dhacay weerarkii xalay? Sida ay xaqiijinayeen ila sirdoon oo reer galbeed oo la hadlay telefishinka Al Jazeera, weerarkii Iiraan ay xalay qaaday wuxuu ka koobnaa dhowr marxaladood. gantaalo plastic ah oo laga soo riday gudaha Iiraan ayaa bartilmaameedsaday saldhigyo istiraatiiji ah oo ku yaala gudaha Israa'iil gaar ahaan koonfurta Tel Aviv, Haifa iyo saldhigyo kale. gantaalaha hypersonic ayaa sidoo kale Iiraan waxay sheegtay inay guuleysteen oo bartilmaameed sax ah ay ku dhaceen oo muhiim u ahaa gaar ahaan bartilmaameed ay ku sheegeen yihiin kuwa laga soo abaabulo weerarada ay Israa'iil ka geysato gudaha Iiraan. diyaaradahan duuliyaha lahayn nooca Shaahid 238 oo leh farsamo casri ah iyo dareemayaal cusub oo ka hortagaya in la qabto ayaa qayb ka ahaa weerarkii xalay ay Israa'iil kala kulantay waji gabaxa weyn sida lagu sheegay war rasmi ah ka soo baxay ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan. weerarku wuxuu ahaa mid qorsheysan oo loogu talagalay argoosiga dilka saynisyahannada iyo taliyaasha sare ee Iiraan isla markaana lagu beegsanayo salgida laga abaabulo duqeymaha Israa'iil. khaladka sirdoon ee Israa'iil ay xalay wajahday warbixin laga helay telefishinka Israa'iil ee Janaal 13 waxa uu xaqiijiyay nidaamyada sirdoonka Israa'iil gaar ahaan Mossad iyo unuga lagu magacaabo 8200 ay ka gaabiyeen inay odrasaan nooca hubka ay Iiraan u adeegsanayso weerarka. waa markii ugu horeysay warbixinada gudaha Israa'iil ay sacad u qirayaan in dhammaan shabakadihii digniinta hore ee lagu ogaan jiray duulaanka Iiraan ay soo wado nooca hub iyo bartilmaameedyada ay xalay fashilmeen. wararka lagu kalsoonaa ee CIA-da iyo NSA ka soo baxay ayaan iyaguna si buuxda u iftiimin nooca hubka iyo bartilmaameedyada Iiraan ay beegsan karto. falanqeeyaasha gudaha Israa'iil waxay weerar la barbardhigeen ceebtii Yom Kippur ee sanadkii 1973 markaas oo Israa'iil la weeraray iyadoo ciidamadeeda aysan feejignayn. saameynta weerarka hay'adaha cilmi baaris, xarumo shidaal iyo kaabayaal dhaqaale ayay gaareen gantaalada Iiraan. wargeyska Mareykanka ka soo baxay New York Times waxa uu sheegay xarun cilmi baaris oo muhiim ah oo ku taala Israa'iil in si toos ay u gaareen gantaalada ay Iiraan ku weerartay gudaha Israa'iil halkaasna burbur weyn oo xaruntaasi kala kulantay. waxaana halkaa ka dhacay dab qabsaday dhismaha ay yeeleen shaybaarada cilmi baarista. wargeysiga isaguna Israa'iil ka soo baxay Yacdad Ahronos wuxuu isna sheegay macadka Wisman ee cilmi baarista oo ku yaala koonfurta Tel Aviv inuu isaguna burbur xoogan gaaray kadib markii gantaaladii Iiraan ay si toos ah ugu dhaceen. muhiimadda macadkan uu leeyahay ciidanka Israa'iil waxay ka mid ahayd warbixino faahfaahsan oo bogga Facebook iyo Imaan Jaamac ka heli kartid. xaruntan waxay leedahay nanayso caqliga, socodka, fikirka iyo talaabooyinka ciidanka Israa'iil iyo waxa Israa'iil ay doonayso inay dunida kale ku dhaafto. laakiin ma awoodin Israa'iil xaruntan muhiimadda dhan leh in ay ka horjoogsato weerarada Iiraan. shirkadda saliidda ee Basan waxa ay sheegtay iyadu in ay dhibaatooyin waaweyn ay gaareen saldhigyada ay shirkaddan ku leedahay Haifa oo ah magaalada labaad ee ugu muhiimsan ee dhinaca waqooyi Israa'iil kaga taala. qadadka dhuumaha gudbiya saliidda ayaa si weyn burbur ay u gaarsiiyeen weerarada Iiraan. sidoo kale idaacadda ciidamada Israa'iil ayaa shaacisay in kaydka shidaalka iyo dhuumaha muhiimka ah ee Haifa ay si aad ah u waxyeeloobeen. xakamaynta warbaahinta Israa'iil oo ciribtiraysa xogaha burburka. ciidanka Israa'iil waxay soo rogeen xayiraad warbaahineed taasoo mamnuucaysa faafinta sawirada burburka dhabta ee dhacay, sheegidda goobaha istiraatiijiyadeed ee waxyeeladu gaartay, warbixin kastoo la xiriirta saameynta fog ee weerarku dhaliyay. tani waxay muujinaysaa cabsida laga qabo in shacabka Israa'iil iyo beesha caalamka si buuxda u arkaan baaxadda dhabta ee khasaaraha ka dhashay weerarka. weerarka Israa'iil wuxuu ahaa sida mar hore loo diiwaangeliyay kii ugu weynaa ee Israa'iil ay taariikhdooda dhan ay la kulmayso. waxaa la arkay Israa'iil oo u muuqaal ee gaar ahaan dhismayaashii dhaadheeraa ee ku yaalay bartamaha Tel Aviv oo u muuqaal ekaaday Gaza
iyo Beirut qaybteeda koonfureed halkaas oo Israel bombooyin ku garaacday laakiin weerar daqiiqado socday wuxuu keenay in muuqaal kale uu ka soo dhex saaro gudaha Tel Aviv Israa'iyiintana la tuso in wax kasta warbaahinta ay ka maqleen hogaamiyaashooda siyaasadda iyo ciidankaba inaysan dhab ahayn oo haddii loo baahdo guryahooda la burburinayo in ka badan 1,000 qoys ayaa la sheegay hadda inay banaanka joogaan oo ay la yihiin meel ay ku hoydaan kadib burburka gaaray dhismayaasha dhaadheer ee Beirut ku yaalay saameynta weerarka waxay keentay in falanqayaasha gudaha Israel ay mar horeba bilaabaan inay isbarbardhig ku sameeyaan dagaallo hore iyo waxa Israel xalay ka dhacay ilaa hataa la maqlay siyaasiyiinta iyo hogaamiyaasha siyaasadda ee Israel kuwaasoo sheegaya in markii ugu horeysay arkayaan wax aysan taariikhda hore noloshooda ku arag isbarbardhig ayaa lagu sameeyay dagaallo hore iyo weerarka xalay Iran ay ku qaaday Israel isbarbardhig ugu weyn ee falanqayaasha ay ku soo celcelinayeen iyagoo u muuqda inay durayaan hay'adaha sirdoonka iyo kuwa ammaanka iyo nidaamyada difaaca Israel waxa kamid ah inay soo qaateen Pearl Harbor iskahorimaadkii ama weerarkii Japan ay fulisay sanadkii 1941 Japan waxay si lama filaan waqtiga u weerartay salgiyada badda ee Mareykanka waxayna sababtay in Mareykanku si buuxda dagaalka uga qayb galo oo bombooyin nuclear adeegsado weerarkii Iran wuxuu si lamid ah u muujiyay wajigabax istiraatiiji ah inkastoo wali Mareykanku si toos ah uusan dagaalkan u soo gelin haddana Mareykanku wuxuu gacan farsamo howlgelin iyo sirdoonba uu siinayaa Israel taasoo u dheertay inuu sidoo kale hubka Israel u baahan tahay ku wareejinayo balse sirdoonka Mareykanka kuwa Israelba dhaleecaynta ugu weyn ee gudaha Israel uga imaanaysa hadda ayaa ah in aysan awood u yeelan inay qiyaasaan ama ay wax ka ogaadaan hubka Iran u adeegsan doonto weerarkeeda xogta awoodda Iran qorshayaasha aanan la qiyaasi karin Iran waxay dhowr sano ku dhisay sirdoon gudaha ah oo diiradda saaray inaan la jibin isla markaana laga hortago isku dayada Mossad ee la doonayo in lagu fashiliyo shaqada nuclearka warshada gantaalo casri ah oo gudaha Iran ku yaala sida warshada Haji Qazim oo gantaalo plastic hypersonic lagu sameeyo isticmaalka habab sirdoon iyo tiknoolajiyadeed oo Iran adeegsatay waxa ay u ogolaadeen meelaha Israel ka ilaaliso gantaaladeeda ama ay yeelaan nidaamyada difaaca inay wax ka ogaato isla markaana ay ugu yeelato Iran inay jibiso weerar ay fuliso sida uu yiri falanqay Iran oo ka tirsan jaamacadda Tehran tani waxay ahayd tijaabo guuleysatay oo muujinaysa in Iran ay buuxisay booskii ciyaaryahan ciidan casri ah haysta saameynta difaaca Israel meelaha la beegsaday warar lagu kalsoonaan karo ay baahiyeen wargeysyada Haaretz oo Israel ka soo baxay iyo Jerusalem Post waxay xaqiijiyeen gantaal lagu dhuftay saldhig ku yaala Negev oo lagu tunsan yahay inuu yahay xarun nuclear oo Israel leedahay inuu geystay dhibaato taasina horseedayso in xaruntaas oo muhiimad weyn leh haddana nidaamyada difaaca wadu ma yeelan inay ka hortagaan gantaalada Iran diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ayaa hadda waxa la sheegay in Iran dib u farsamaysay oo tiknoolajiyad dheeraad ay ku soo xirtay diyaaradahaas qaar kamid ah waxay ku dhaceen xarunta guud ee xogta militariga oo Mossad ilaaliso intaa waxa dheer tirada gantaalada badan ee ka soo gudbay nidaamka difaaca Iran waxa uu dhaliyay walaa xor loo gudaha Israel ay cabsi ay ka qabaan suurtagalnimada weerar inta ka weyn hadii ay qaado Iran waxa ka dhici kara gudaha Israel weerarka wuxuu dhaliyay goordhaweed waraysi uu bixinayay ra'iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu oo si toos ah telefishinka Mareykanka laga leeyahay Fox News oo su'aalo u weydiinayaan wuxuu xaqiijiyay in nidaamyada gantaalada Iran yihiin kuwa awood badan hadii waqti yar ay hesho Iran ay awood u yeelan karto inay soo saarto gantaalo gaari kara Mareykanka walow ay tan uu ka dhiganayo waxa uu taageero iyo qalbi jilaac uga raadinayo Trump iyo dadka Mareykanka haddana awoodda gantaalada Iran waa kuwa dhab ahaantii laga arkay weeraradii ugu dambeeyay jawaab celinta caalamiga ee su'aalaha la iska weydiinayo Mareykanka weerarka xalay kadib waxa Pentagonku si dhaqso leh u yeeshay shir kaasoo ka qayb galayeen taliyaasha ugu sarreeya iyo khubarada military iyagoo qiimeynaya sida la sheegay in weerarada Iran ay xoogaysanayeen ka dhacay gudaha Israel ay ka dhigan tahay in loo baahan yahay Mareykanku inuu dib u habeyn ku sameeyo siyaasaddiisa gobolka Ingiriiska iyo Faransiiska oo sidoo kale taageero weyn oo Israel wali ma cadeyn mowqifkooda balse afayeen u hadlay xukuumadda Ingiriiska wuxuu yiri xaaladdu waa mid aad u kacsan halka wasiirka difaaca Faransiiska uu yiri gantaalada Iran waxay awood u leeyihiin in Faransiiska lagu soo weeraro waa in laga hortagaa dhibaatadaas xaaladan hadda waxa ay dhalinayaan ma dhici karta in Iran ay ku dhiirto weerar labaad ma jiraan dalal kale oo si qarsoodi ah u garabsiiyay Iran ma jirta awood dhab oo ka hortagta dagaalka guud ee gobolka qabsaday marka laga soo tago su'aalahaas wixii xalay dhacay ma ahayn kaliya weerar gantaal ee wuxuu ahaa dhacdo weyn oo Iran ay ku muujinaysay awoodeeda ee sida ay u gaari karto bartilmaameed muhiim ah burbur weyn oo dhalin karto tani sidoo kale waxay soo bandhigtay jab sirdoon oo Israel ay xulafadeedaba ku dhacay oo saameyn ku yeelanaya isla markaana ku qasbaya in dib u habeyn ballaaran dhexdooda sameeyaan
bilow cusub oo dagaal toos oo gobolka ka dhex qarxi kara haddii aan la xakamayn ayaa sidoo kale ah waxyaabaa si weyn hadda looga digayo. Sida uu yiri Dr. Treta Parsi, falanqeeye siyaasadeed oo caalami ah, maanta waxaa awood yeeshay cabsidii ugu weynayd ee reer galbeedka. Dagaal ay hurayaan Iiraan iyo Israa'iilna wuxuu sababi karaa dagaal nuclear haddii aysan dowladaha caalamku si degdeg ah u faragelin. Intaa markii laga soo tago, Iiraan hantideeda ugu weyn ay ku xisaabtamayso ee diyaaradaha duuliyaha lahayn Shahiid, Khaybar iyo Imaad iyo gantaalada markii ugu horeysay ay banaanka u soo saartay oo xalay ay adeegsanaysay oo loogu magac daray sargaal hore ama taliyihii ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan ee qaybta dibadda ee Qudus ee Qaasim Suleymani ayaa noqday waxa hadda keenaya in la isweydiiyo su'aasha ah: Iiraan hubkeeda awood ma leeyihiin inay jabiyaan Israa'iil? Tani waxa ay Iiraan ku soo bandhigtay weerarkii xalay oo ay ka qayb galeen gantaalada plastigada, diyaaradaha duuliyaha lahayn iyo gantaalaha hypersoniga, kuwaasoo dhammaantood awood u yeeshay inay jabiyaan nidaamyada difaaca Israa'iil isla markaana ay gaaraan bartilmaameedyo. Waxa xusid mudan waa in Israa'iil ay adeegsato nidaamyo difaac oo Mareykanku leeyahay. Taasi waa in nidaamyada difaaca Mareykanka iyo kuwa Israa'iilba ay awood u yeesheen hubka Iiraan inay jabiyaan Israa'iil. Iska horimaadka ama dagaalka u dhexeeya Iiraan iyo Israa'iil ma ahayn wax xalay oo kaliya ku eka. Maantay ayay Iiraan weerar qaaday iyadoo ka jawaabaysa duulaan balaaran iyo duqeymo iyo weeraro gudaha iyo cirkaba ka dhacay oo Iiraan ay la kulantay xilli habeennimadan la isla soo gaaray oo Israa'iil duulaan hor leh ay ku qaadayso bartilmaameedyo muhiimka ah oo ay ku jiraan xarumaha dawladda iyo kaabayaasha kale muhiimka u ah ciidanka iyo dhaqaalaha Iiraanba. Ayaa hadda waxa ay taasi keenaysaa in la arkayo waji hor leh oo xiisadan gashay oo laga digayo inay noqon karto mid dhalisa dagaalweyne gobolka oo dhan. Warbixinteena ayaa intaas inooga eg. Hadduu eebid warbixinada xiga ayaad ka heli doontaan macluumaadkii ugu dambeeyay iyo dhacdooyinka kuwada ugu doorka roon iyo meelaha u baahan inaan ka eegno xiisadan. Mar kale intaanu kulmayno, sidaas iyo amaanad Allah.